barakacayaasha kaamka kala sharkay degmada Garadag oo ka cabanaya cadaalad darro xoogan oo ay sheegeen inay kala kulmeen maayirka degmada Garadag iyo guddi ay sheegeen inuu maayirku u magacaabay kaamkaasi ay ku sugan yihiin ayaa subaxnimadii hore saaka mudaharaad ka dhigay xarunta dawladda hoose iyo barxadda hore ee saldhigga booliska ee degmadaasi. dadkan ayaa sidoo kale sheegay in guddida kaamkaasi kaarimiya iyo maayirka degmada Garadag ay ugu hanjabeen inay haddii ay arrimo kullida sameeyaan ay xabsiga ku guri doonaan. waa siday hadalkooda u dhigeen. intaasi kadib waqti kooban oo ay dadkaasi barakacayaasha hortubnaayeen xarunta saldhigga ciidanka booliska ee degmadaasi waxaa halkaasi soo gaadhay oo rasaas ay ku kala didinayaan dadkaasi oo wadda kaga qaaday qayb ka mid a ciidanka asluubta ee degmada Garadag waxayna u dhacday sida tan. saddexda guddiga hana la ka qabto waana culeena kaasina mariyeen xakamayna geliyeen waxaan doonaa inaan ka qabtaa hana la ka qabto laa ilaaha illa allah maxamed rasuulullaah baan taaganahay. bismillaahi raxmaani raxiim. halkan waxaanu nahay dadka deegaanka ee kala jarka ee barakacayaasha ayaanu nahay 3 sano ayaanu niilay haddii aanu niilay cunaqabatayn iyo cidhiidhin baa nalagu hayay 4 guddida iyo 4 tuug oo ku hoos liiqan. waxaanu doonaynaa haddii dawladda jirto oo cadaalad jirto in si degdeg ah looga qabto dadka maanta waxaa nalagu hanjabaa anagoo deegaan oo xor dhalada oo dalka u dhalanay waa laydin xidhxidhayaa qofkii juuq yidhaahda iyo qofkii isqalluuciya horraanteedina saaka la soo xidhxidhay annaga oo dhammaantaya mudaharaada oo doonayna saaka xariga in laga buuxiyo. raxiin waxaanu nahay ADB-ga degan maxay tahay meel u jirta 4 kiiloomitir magaalada Garadag ADB-ga la dhaho kala sharka ayaanu nahay. waxaanu qabnaa cunaqabatayn aad iyo aad u ballaaran 3 sanadood ayaanu deganayn 3 sanadood waxaana loo ku hanjabaya haddii aad hadashaan waa laydin xidhxidhayaa ayaana loo ku hanjabayay xarigiina waana hortayadii baa maxay tahay soo gashay oo maantana la ku soo xidhxidhay. waxaan kugu yidhi waxaanu nahay barakacayaal dadkii soo abaaro xooluhu abaartu saamaysay ee xoolahoodu ka soo dhammaadeen kadibna waxaan kugu yidhi waxaanu nahay maxaabiis aan xukunayn ayaanu nahay. waxaanu hortubanahay waxaan kugu yidhi dawladdii maxay tahay saldhiggii dawladdii hoose mid walba habeen iyo maalin waanu dul tubannahay waxbana naloo ka qaban kari waa laa ilaaha illa allah allahu akbar hadday caalamkuna maqlayo amana dhegaysanayo waxaanu doonaynaa in wax naloo ka qabto si degdega Soomaaliland wax xaafadeedka doonayno ayda barakacayaasha joogta kala sharka ku nool waxaanu haysta guddi xun oo belaysan oo aan cadaalad lahayn ayaa haysta ma maqlaysaa. waxa weeye calanka dawladdaanu kaga soo eerannay 7 goor baan maayirka u tagnay halkaasuu noogu yimi kuwii uunbu nagu soo diraa saaka markii hay'adii noo timi aan u barxanay oo guriga gogolay oo isleena sooriyo bislaya oo hal laydin qoro oo wixii qatana aan waligiiba la taabanna hal la qoro ayuu dabadeedna ninkii nagu soo diro wixii soo xidhxid waa taana intayadii gobasha dhigaysa waa taana la ka soo qaaday. waxa weeye calankaanu kaga soo eerannay. bismillaahi raxmaani raxiim. waxaanu leenahay yaa allah baanu leenahay allahu akbar hana laga soo gaadho cadaalad darrada caadaqaatayaasha noo heshiiyey ee maxay tahay khasaaradda iyo cadaalad darrada nagu ku qorta dadka ee naloo soo diray cunaana qabtay yaa allah baanu kaga leenahay yaa allah laa ilaaha illa allah. waxaanu ka codsanaynaa barasaabku inuu noo yimaado cagihiisa noogu yimaado kala shar dadka cunaha ay hayaanna bawaagtii ay qorteen iyo wixii ayagu isku qoreenna naloo soo daadiyo oo nalaga qabto yaa allah baanu taagannahay allahu akbar yaa islaama hana laga qabto caadaqaatayaasha laga soo qaaday Garadag ee kala shar lagu soo shubay deegaanka ahayn. waxaan u sheegaynaa xukuumadda Soomaaliland in laga qabto caadaqaatayaashan baktiyay barakacayaashii baktiyay in laga qabto ayaanu doonaynaa. maamulku waxa uu ka qaban waayay xabsi ayuu noogu daray xarig iyo hanjabaad ayaa noogu daray. aragtaan waa dulmi marka hore uquba soo karay marka hore waa uquba soo karodhay dadkii waa fidigi waxa islaam oo kala indhayara oo dadka dhugta ayaanu doonaynaa. waa Maxamed Gumburi telefishinka caalamiga ee Bulsho TV degmada Garadag.